waa tahay weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeennii arrimaha social media oo alaab aad ka dhegaysataan Ibro Radio maanta aynu ku falanqayn doonaa haddii ay barnaamij ka noqdo waxaa igula sugan oo halkan oo maanta aynu ku wada falanqayn doonaa saaxiibkay Xudayfa Cabdiraxmaan Xudayfa soo dhawow aad baa mahadsantahay Axmed Garaad waa kaaga mahadcelinayaa barnaamij qurux badan oo dooratay Axmed adiga iyo daawadayaasha iyo dhegeystayaasha Ibro Radio waa salaamaya meel walba ay joogaan hayo aada weyn niyo bal arrimaheennii aynu alaaba kaga hadli jirnay social media iyo wixii ka cusub bal social media maxaa ka cusub qaybaha TikTok iyo hadii fiirino markaad fiiriso social media afka qalaad weey af Soomaali markii loo imaado waxa la yiraahdaa baraha bulshada sax baraha bulshada mostly aad waxaad u maleysaa Soomaalidu in ay boqolkiiba 70 ay fahansanayso sida loo isticmaalo horta sax annagoo dunida kale meesha ay lacag ka sameynayso magac ka sameynayso horumar kala duwan ay sameynayaan Soomaaliya hadaan ahay aan ka sameeyno arrimo qabiili ah deegaano la isku dagaalay iyo dhibaatooyin iyo inkastoo hadana xadaarinimo ama mataqaana reemagaalnimo badan hadda ay naga muuqato wax badan aan dunida la fahmayno markaad fiiriso dadka markay billion ku tartamayaan Soomaalidu hadda million ay ku tartamayaan million bay ku tartamayaan dadkana dunida waxay ku tartamayaan صح billion subscribe صح billion followers صح billion oo mataqaana loves ama likes صح anna maxaa ku tartamayna million 100,000 صح boqol kun oo gaar hebel صح marka waad arkaysaa yani farqi u dhaxeeya laakiin Soomaalida dad aad u fiican waaye oo maadaama dad xoolo dhaqato asalkeena aan ahay صح Soomaalida wixii ka horeeyay 1990 iyo shantii صح oo de markii 92 la soo qaxay 3 sano dunida kala la galay صح ka hor xoolo dhaqato ahayna wayada heesaha qaaraamiga iyo gabayaaga iyo gabayada iyo aad iyo aad waxyaabahaas Soomaalidu caan ku ahayd waagii ragga Soomaaliyeed ay ku goolaftami jireen murtida yani ay ku kaftami jireen murtida ay ku kaftami jireen mataqaana waagii hore dumarka laga kaftami jirin afkana Soomaalidu صح ninka ragga gabadha markii laga hadlo dhungoosay ahayd صح waa meesha ugu dambaysa oo ka dhintay صح wixii la isku dili jiray maanta maxaa jira marka social media ama baraha bulshada maanta maxaa ka jira dumarka waxa ugu badan oo la qabiil hebel baa gabar naga soo caayay waa caynina qabiil hebel baana soo dhahay waa dhaheena mostly waxaad u malaysaa in dumarka aad maaragtay ragii hore dumarka laga baka صح waxa waay inkastoo wali ay nagu dambayso oo dadka qaar markay arkaan qof gabar cayn ay ka gubanayaan صح laakiin waxa nagu badan dadka gabdhaha wax ka sheego oo hadda ku kaftan oo waayadii hore Xudayfa aan ka dhaxgale waxaa jirtay ninka haddii gabar waan ku siinaynaa la yiraahdo oo dhaho ma rabi xal iyo xumeyn laga qaaday xal iyo xumeyn haddana ma rabi iyo waxaas maartay caadi iska tahay xal iyo xumeyn wali waxay ahayd Google dhig weyn صح oo Google loo dhigay Google fadhiisanaya geed hoostiisa la isku imaanaya wax fikrad waaya gabadha aad tiri ma rabo waa inaad ka soo garbaxdaa صح ma fahanti صح way marka dumarka meel adag buu ku laakiin baraha bulshada waxyaabo ugu badan laga dhaxlo waxa kamid ah dhaqan guurka ay kamid tahay in dumarkii ay noqoto wax lagu qaftamo wax lagu dagaalamo hub la isku weeraray inay noqdo gabdhaheeni صح ha sidoo kale waxa la sheegay dadka ugu badan waayadan dambe oo social media gaar ahaan barta TikTok baraha bulshada u badan oo isticmaal inay Soomaali yihiin waa horta waa laga guuri rabaa صح bal waxa ah hadda gabadha u taagan prime ministerka ama ra'iisul wasaaraha dalka UK oo kale campaign-keeda inuu kamid yahay in ay tirtirayso aalada TikTok inay ka saarayso dalka UK gabi ahaanba hadii ku guuleysatay boqortooyada dhan inaan laga daawan doonin صح Mareykanka process already galiyo ogtahay صح Kenya hadda ka horeyso magac dhawday laakiin waxba kama mira dhalin laakiin dhaqaale laga sameeyo bahalkaas صح wala isku baarta waayadan dambe waxa aragtaa dad geemam dheelaya oo qabiil oo qabiil ahaan ku dheelaya wala isku baarta صح marka laakiin uu si dabar go'aya wax nafr u weey malaha dadkii xataa YouTube ka isticmaali jiray YouTuberada caanka ahaa waxa moodaa xagga TikTok inay u soo wareegeen oo habeen walba aragtay in game dheelayaan aad iyo aad marka eegto wax badan kaga duwan yihiin waxyaabaha kale صح marka lacagtii TikTok YouTube ka laga heli jiray tan waxa ka badnaatay baa laga helayo hal habeen baa waxa shaqeynaysaa $2,000 صح gabar baad caynaysaa صح qabiil baad caynaysaa deegaan baa horta TikTok lacag waxa ka sameyn kara nin alla ninkii rabo cirdi iyo sharaf shakhsiyadeed inuu u gafo bas yaa ka sameyn mid qabiil mid shakhsiyad mid diimeed mid Soomaalinimo ninka u gafo bis lacag ka sameyn kara yaa ka sameyn qof wanaagsan lacag kama sameyn karo صح iyo gabar isa soo qaawisa ama maaragtay ceebaheeda banaanka dhigta shakhsiyaadka lacagta ka sameeya hadda ee wanaagsan ee social media noogu jiro waxa xumeynaya kuweena kale ku dhagan oo maalin walba waxaan ku tilmaamay ayagana de wax maanayaan maalinka dambe صح marka mostly dadka
baraha bulshada isticmaalaha Soomaalida ahaa si khaldan bay u aaminsan yihiin aad iyo aad khalad bay ka aaminsan yihiin maaragtay baraha bulshada heesaha qaawaniyaal iska soo duubaa waxyaabo badan effectiyo badan baa jira hawni waxaa aragtay muxaadaro ama wax wanaagsan markii dadku soo way duubaan ku yaryihiin ma sheer gareeyaan ma daawadaan like ma saaraan laakiin gabar markii soo qaawayso ama wiil qof ku dhagan waxaad aragtaa intaas oo malaayiin oo sheer in lagu sii sameeyo waka dhaqan guurkan ugu dhacay waa soo kuma lehe waa tahay dhegaystayaal daawadayaal barnaamijkeennii aan kaga hadlaynay arrimaha social mediaha iyo hadba wixii ka taagan markaas ka taagan intaas ayaan kusoo afmeeraynaa waa aniga saaxiibkay xudayfe cabdiraxmaan oo noo faahfaahinayay intaan kulankan kulan la mida ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo